bismillaahi raxmaani raxiim. casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo cut and paste. casharkii hore waxaan kusoo baranay sida loo isticmaalo copy and paste, qoraalka si loo copy gareeyo loona badsado. kanna waxaan ku baran doonaa qaabka loo cut and paste loo isticmaalo. cut and paste macnaheedu waxaa waaye in line-kan ama qoraal inaa meel ka soo qaado oo meel kala dhigo aniga oona wax copy meeshaas ku reebeynin. totally inaa kasoo qaado meeshan position-kan oo position kale inaa geeyo, hoos inaa soo dhigo aniga oona wax copy kor uga soo tagaynin. waxaa loo yaqaanaa cut and paste. kii hore muxuu ahaa? waa copy and paste ahaa oo qoraalka ma copyeysanayay asigoo meeshiisa yaalo ayaa mid lamid ah hoos ku sameysanayay, qoraalka waa badinayay. balse cut and paste casharkan waxaa waaye cut and paste oo ah inaan qoraalkan dhan soo jaro ama qaybta aan rabo inaan soo jaro select saarto kadib asiga dhan soo qaado position cusub geeyo. waxaan filayaa inaad fahantay micnaha cut and paste. okay, hadda aan aragno sida loo isticmaalo. marka aad rabtid cut and paste inaad isticmaashid, qoraalka aad rabtid inaad u isticmaashid ayaa select saaranaysaa. hadda line-kan ayaa select saartay, waxaana rabaa inaad position-kan kasoo qaado cut kasoo dhaho oo meeshan hoose inaad line-kan keeno. maxaa sameynaa? marka aad saan select u saaratid waxaa maraysaa wadadii hore, home ayaa tegaysaa. home markii aad tagtid waxaa ka dooranaysaa cut ayaa ka dooranaya. hadda qoraalkaygu waa baxay, intuu aaday waa jaray. cut macnaheedu maxaa waaye soo qaad, soo jar. hadda qoraalkii waa jaray line-kii. maxaan kansarkan ayaa waxaa geenayaa position-ka aan rabo inaan dhigo, hoos dhexda geey. tusaale ahaan meeshaas uu taagan yahay ayaan rabaa inaan soo dhigo. waxaa sameynaya, waxaa ku laabanayaa home ayaa ku laabanaysaa, waxaana ka dhahaysaa paste. hadda maxaa soo dhigay qoraalkayga? kor waa ka soo jaray, waxaana soo dhigay hoos. cut ayaa soo dhahay, paste ayaana kusoo dhahay hoos. waa ila fahantaa umalaya. markii arab inaan inta ka qaado oo meeshiisa hore ku celiyo maxaa sameynaa? qoraalka select ayaa saaranay. select markii aad saaratid home ayaa tegay, cut ayaa ka dooranay. qoraalku wuu qarsamayaa, wuu baxayaa, balse waa wataa. meesha aan rabo ayaa tegayaa. kor igu celi, kasarka falaaraha keyboardka ayaa ka socdaa, kor ayaa tegay. kadib waxaa ku laabanaya homekaaga, paste ayaa dhehe. hadda qoraalkayga waxaan geeyey position-ka kor. okay, wadada kale oo loo isticmaali karo waxaa waaye qoraalkaaga inaad select saaratid, right click kor dhahdid, kadibna aad cut dhahdid. waa iyadan oo isticmaali kartaa. dabadeed meesha aad rabtid inaad tagtid, meeshaan ayaa rabaa, waxaa ku dhahaysaa right click, kadibna pastigan option-kan ayaa ka dooranaysaa dhexdiisa. qoraalka maxaa iisoo baxay? hadda qoraalkii waa iisoo dhigmay, kor ayaa kasoo qaaday, dhexda ayaana keenay. okay, waddo kaloo loo isticmaali karo waa shortcut ayaa jira la isticmaalo. inaad keyboardka control ka dooratid, control x markii aan dhaho waa cut, waa jaray. meesha arabo position-ka arabo qoraalkayga inaad dhigo ayaa tegayaa. markii aad tagtay keyboardka ayaa ku laabanaysaa, control ayaa qabanaysaa, kadibna v ayaa dhahaysaa oo paste u taagan. hadda maxaa isoo muuqanaya? qoraalkayga inaan hoos cut ka soo dhahay qaybtan hoose oo geeyey qaybta sare. marka faa'iidada ay leedahay iyo waxa ay ku kala duwan yihiin copy and paste iyo cut and paste waxaan rajeynayaa inaad aad u fahantay. intaa casharka waxay ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.